بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. halkani waa galbeed TV xaruntiisii magaalada Edmonton ee naga daawanaysaan caalamka oo dhan bartayada Facebooka ee galbeed TV. daawadayaal meel kasta oo joogtaan waxaan leenahay soo dhawaada daawadayaal meel kasta oo aad joogtaan. maanta waxaan idinku haynaa dhowr qodobka ugu horeeya oo ah nin sheegta inuu yahay safiirka Somaliland u fadhiya dalka Djibouti oo hawlo ka fulinaya jeegaanta wadato ka fulinaya degmada Saylac. waxaa kaloo idin soo qaadan doonaa haddii Allah wadari ogolaado dhakhaatiirta caalamka oo cadaysay 10 qodob oo Somaliland shacabka Soomaaliyeed u naceen oo ah mataqaanaa soo qaadan doono operation lagu sameeyay. waxaa kaloo soo qaadan doonaa Ethiopia oo xaaladeedu ay cirka isku sii qodobadaas iyo qaar kale ayaynu ka hadli doonaa haddii Allah wadari ogolaado. marka hore se ku soo dhawaada galbeed TV meel joogtaanba. waxaan leenahay meel joogtaanba تعالى وبركاته دمان مر لبعض أخيارته سود وهذا الكني وقلبي تي في حرونتي سي مقالة داير متون دلك كندا ونقدا ونسان عالم كوردن برتي ذا فيسبوك قلبي تي في الدعوة ديال وبرشدني وعي قرينتا
arrimaha siyaasadda dowladnimada iyo sinaanta iyo cadaaladda mar walbaan kusoo qaadan jirnay si bulshada soomaaliyeed uga faa'iidaysato inay helaan dowlad wanaagsan iyo maxaan ku rahdaye dal iyo dad la wada leeyahay ummadda soomaaliyeed ay wada ilaashanayso maaha oo kama hadalno mana buunbuunino mataqaanaa kooxaysi iyo qabiilaysi laakiin waxaanu had iyo jeer ka hadalnaa ummadda soomaaliyeed inay wax wada leedahay meel kasta ay ku nooshahayba marka qodobada maanta nigu soo sheegi doono waa sidaan horey idinku sheegay dhowr qodob baan nigu soo qaadan doonaa qodobka ugu horeeya waxaan ka hadli doonaa waxa weeye waxaan rabaa shacabka reer awdal inaan weydiiyo inay garanayaan ninkaasi waxaan u malaynayaa shacabka reer awdal inay ninkaa ina wada garanayaan baan u malaynayaa ninkaasi waa nin kamida u shaqeeya jeegaanta ama hegoland u shaqeeya una jooga dalka Djibouti dalka Djibouti ninkaas oo fadhiya waxaana uu had iyo jeer rabaa inuu dadka reer awdal cadaawada ugu qabo inuu gobolka awdal curyaamiyo haddii dhaqaale noqoto iyo haddii noqoto waxyaabo kaleba ninkaasi waxa uu kontarak kusoo qaatay Ismaaciil Cumar Geele inuu kula soo heshiiyo inuu halkan kasab laga sameeyo oo Ismaaciil Cumar Geele ka samaysto waxyaabo fara badan sida fishing board inkastoo ay horumar tahay dadku ay mataqaanaa ay ka faa'iideysan karaan laakiin haddana waxa weeye shacabku iyo dadkaasi wax laga ogeysiiyey ma jirto hore waxaan u ogeyn in niista laga gurto waxaan ku rahdaye dhulkaasi oo niista lagu dhisay guryaha loo dhoofiyo dalka Djibouti companiga iyo macidda hawsha ka shaqeysan ay tahay ninkaasi iyo qaar lamida marka waxaan leenahay shacabka dadku ma ku baraarugsan yihiin shaqooyinka ninkaasi ka haya dalka Djibouti miyay ku baraarugsan yihiin mise kuma baraarugsana taasi waa isweydiin leh ta isweydiinta li waa taa wey shacabku ma ku baraarugsan yihiin ninkaasi shaqada uu ka hayo gobolka awdal taasi waxaan u deenayaa kulle shacabka reer awdal iyagaa kasoo jawaabi doona ninkaasi hawlaha uu ka hayo gobolka iyo hawlaha uu ka hayo maxaan ku raha dalka Djibouti hegoland waan hore u sheega waxaan idhi boqortooyadii galbeedka Hargeysa waxay gaadhay ilaa Saylac bay sii maraysaa iminka dhulkii way sii dhaaftay dhulkii awdal oo dhex martay Saylac baa ka hilaacday oo rabtaa inay mataqaanaa isku xidho hawlihii iyo wixii loogu talagalay iyo ajendayaashii Muuse iyo ay wateen heego maxaan ku rahdaa ay ka wateen gobolka awdal iyo danaha kala hayeen gobolka waqooyi gobolada waqooyi oo dhanba hadda waa la bilaabay marka dadku waa inay saa ula socdaan ninkani waa ninka aad wada garanaysaan waa nin taariikhdiisa aad ogtihiin cadaawadda iyo maxaan ku rahdaa shacabka reer awdal uu qabo waa taqaanaa ma filayaa dadku wada garanayaan ninkaasi waa ninkaasi wafdigaas uu hogaaminayay meelo badan bay soo mareen oo kamid degmada maxaan ku rahdaa Saylac waxaana rabaan hawlo fara badan oo kula soo heshiiyeen maxaan ku rahdaa heegada Djibouti ayaa laga fulinayaa maxaan ku rahdaa gobolkaasi awdal baa laga fulinayaa marka dadku waa inay ka hadlaan waa inay ka dhiidhiyaan waa inay mataqaanaa ay ka dadku waa dhulkooda ilaashadaan maaha dhulkooda inay cid kale mataqaanaa ay u daba fadhiistaan oo mataqaanaa khayraadkiisa iyo maxaan ku resource gobolku leeyahay inay cid kale uga faa'iideysato iyadoo lasoo marayo maxaan ku rahaa heego ama cid gaari ay mataqaanaa ay ka faa'iideysanayso dadkii reer awdal ee gobolka u dhashayna ayna ka faa'iideysanayn marka taasi waa inay dadku ogaadaan taas baan rabaa dadku inay ogaadaan oo ila ogaadaan qorshayaasha uu ninkaasi ka damacsan yahay guud ahaan gobolka awdal marka shacabku waa inay ku baraarugsanaadaan waxaan malaa ninkaasi inaad wada taqaanaan haddii aad ninkaa wada garanaysaan nin walooba kaga jawaab codkaaga waa in la maqlo codkaaga waa in la maqlo wey codkaaga waa in la maqlo ninkaasi hawlaha ka wada gobolka awdal iyo guud ahaan waqooyiga Soomaaliya ninkaasi waa wada taqaanaan taariikhdiisa wada garanaysaan hore wax badan baad uga hadashay looga hadlay waxyaabo fara badan oo dadka reer awdal gifo fara badan oo ku sameeyay iyo cadaawadda uu qabo uu soo bandhigay mar hore media ay ku jirtaa marka taasi waa taas qodobka labaad kusoo qaadan doono barnaamijkeena maanta waxa weeye dhakhaatiirta caalamka oo operation ku samaysay ama qalliin ku samaysay Somaliland baa lagu sameeyay operation waxaana soo baxay 10 qodob oo adduunyadu iyo shacabka Soomaaliyeedba ay u naceen hegoland waxa la yiraahdo ama dhulkii loo jiray Somaliland ba British Protectorate loo jiray 10 qodob oo loo nacay dadku waxay dhahan maxaa loo ictiraafi laayay dadku waxay dhahan maxaa adduunyada uga sii jeesatay dadku waxay dhahan maxaa dadku ay adduunyada u soo eegi lahayd meeshan marka laga reebo hay'adaha humanitarian imikana Muuse humanitarian ku saarayba kadib markii uu ogaaday in la ogaaday xanuunka haya Somaliland dadka reer Somaliland xanuunka haya ka jira markii la ogaaday dhakhaatiirta caalamku cadeysay ayuu Muuse waxa uu go'aansaday inuu yiraahdo waan eriyo waxaan ku leeyahay hay'adihii caalamka u joogayba wax waan eriyo qodobadaasi waa kuwan hadaba ila daawada haddii ay jiraan wax ka duwan
oo shacabku ay hayaan wax ka duwan arrintaasi dhakhaatiirtu ay soo bandhigeen dee waxaan malanayaa waa la ii sheegi karaa numberka ku qoran shaashadda waa soo wici kartaan whatsappka waxaa kaloo soo wici kartaan numberka ku qoran isaguna shaashadda ku qoran ciddii nool America joogta iyo maxaan ku dhaha qofkii haysta long distance haystaba wuxuu soo wici karaa numberka kale ku qoran shaashadda iyo whatsappka labada numberba waa shaqaynayaan waa marka ila daawada hadda maxaan ku dhahdaay arrinta ugu weyneed ee Somaliland loo adduunka u ixtiraafi layahay inay dadku arkaan baan rabaa dadku in badan bay mataqaanaa iska dhiga tireen Somaliland wax loo ixtiraafi layahay why Somaliland loo ixtiraafi layahay why Somaliland nobody recognize why dad badan baa isweydiinaya sababta loo ixtiraafi layahay dhakhaatiirta soo bandhigtay arrintaasina Muuse hor taalay imika Muuse wuxuu leeyahay waxani ma waxin hor yaalayahay inta in hor yaalay Muuse ilaa hadda wali uu garwaaqsan layahay Somaliland ina waxan hor yaalaan wadabadan hor yaala Somaliland Muuse ilaa hadda ma garwaaqsan marka shacabkuna waxa la rabaa inay ogaadaan Somaliland sababta loo ixtiraafi layahay Somaliland waxa loo nacay Somaliland waxa loo diidan yahay Somaliland dadku waxay ugu faanay layihiin Somaliland la wada leeyahay maxaa loo arki layahay Somaliland dadka qof kasta oo reer Somaliland oo ilaalinayo sababta loo leeyahay ban adduunka la rabaa maanta in adduunku soo bandhigeen oo dadku ay arkeen maanta hadda bal daawada waxaan rabaa inaad daawataan sababta the reason Somaliland loo ixtiraafi layahay waa kan nin walba hadda dhagaha furo la tiriya hadda waa tobanka qodob ee Somaliland loo ixtiraafi layahay halkaas ku jira dhakhaatiirta adduunyada ayaa soo saartay xanuunka haya Somaliland this is waxa haya Somaliland waa xarbahaya riyada arrin baygasiya suliyo banqaba sirtaydi baabiryahan samada lagu maalaya daawada operation dhakhaatiirtu ku samaysay maxaa u soo horeeya cuqdad baa u soo horeysa eriga la yiraahdo cuqdad maxaa ku xiga qabyaalad baa ku xigta maxaa ku xiga Soomaali nacayb maxaa ku xiga hadal badan aan laga maqlo mujaahid baa ku xigta been ku noolaasho in dadku been ku nool yihiin balwad qaadka soo dhaciyay bala leeyahay maxaa ku xiga cunsurinimo gaala jacayl kan Israa'iil geeya Israa'iil hayna ixtiraafto adduunku hayna ixtiraafo hadda exactly waxa dhakhaatiirtaasi ay soo saareen ay soo bandhigeen Somaliland ma ka jira absi kama jiro is this true or not hadda la fiirsada arrintaasi waxaasi wax jira ma yihiin من reality بقى بس اختار كاسي بين بوكا شيء قليل مسميه سومالي لا واحد كتير يعني قبيل قرن محاكرة عقدة سومالي نعيب سومالي ويب ديمانتي شنتي سومالي بار ديمانتي وحاسور يعني سوى حد بيدو مع سومالي لما وصوبت نين كستو سومالي حركة قبطة برضو حركة تروح حمرتو محمد كدونية واي سومالي نين كستو بردو بيرتلا نين كستو سومالي حركة سو قبطي حمر بوتغا muxuu tagaa ama ha ka soo jeedo beesha dhexe ama ha ka soo jeedo maxaan ku raayay darafyada ciddu doonahaado nin kasta oo xil ka soo qabtay Somaliland madaxa geel bay noqotay Somaliland waxay noqotay wax la yiraahdo madaxa geel nin qaalamo u dhigay nin kasta oo xil ka qabtaa maalintuu dhigo xawar buu ka tagaa boqolaal baad garanaysaa Ruusiya oo mataqaanaa ayaa ka mid ahayd oo wasiirka arrimaha dibadda ee Soomaaliya noqotay Minister of Foreign Affairs of Somalia Democratic Republic ama Federal Somalia هكذا إمسا وزير باكتجي إمسا وزير حكام باكتجي إمسا أجاسنا كتجي إمسا أبويها باكتجي إمسا قريرة كتجي مدحنا كعينك برايم مينستر كعينك كحد الصومالية أيا كم إذا هذا كيش شغال هليس صوماليا نقول لينجري كوميشن كدورفين كيش شغال أيو كم إذا ما أنت ما أركيسان وحو أركي عقدات بو أركي قبيل بو أركي
cudurni mu arkay wuxuu arkay mataqaanaaye buu arkay wuxuu arkay maxaan ku ragaa gaala jacayl la yidhahdo Israa'iil loo geeya Taiwan loo geeya haalan ictiraaf khaniis inoo keena eegada khaniis baa la hoos gelaya oo la leeyahay baad khaniis la hoos galo in la ictiraaf halkaas ay gaadhay Somaliland la sheegay inuu ka hadlaa waa taawiye marka bal ninka Somaliland ku qancinaya dadka Somaliland waxaas kama jiraan ayaa rabaa inuu soo baxo la soo hadlo this is my number soo garaac numberka ummadda balqaacay wax tira Somaliland waxaas kama jiraan Somaliland qodobada ay soo sheegnay hadii ka jirin hala soo hadlo ka hadla runta ka sheega waxa tiraahdaa waa Somaliland waxaas kama jiro Somaliland waxaas kama jiro caqdada kama jirto qabiil kama jiro mujaahid kama jiro nin baa qoray mujaahid hebel balay mujaahid hebel masaakiin buu leeyahay dadkaasi masaakiin Muuse kamid ah masaakiin aan waxba galabsan buu maanta agooma maanta oo dartii uu mataqaanaa u dhimatay oo dadkii uu isagu dilay qaba sirtaydi baabariyahan samada lagu maalaya maana Suudaanta keeno la sii daahir ya shamis ma tahay Somaliland waxa laga jira Somaliland waxa ka jira daahir ya shamis ma yahay misaana wax kala sheegaya xidig madow baa la sameeyay shantii Soomaaliya way dhimatay shantii Soomaaliyeed baa dhimatay wada eegada حد يشوف الصومالي ما الصومالي بقى هي تشتي تشتي بقى NFD بقى تشتي صومال كونفور بقى تشتي وقوي بقى تشتي they all still alive مجرو عدة ما تمجرتو تتخوض الصومالي ما نهاي أيام بقى أيام بقى الصومالي مدودو وأنا صوص عتا صومالي مدودا صوص عتا very soon إن شاء الله ونركنا شنطة صومالي دو مدوبا نركنا نقدا مثلا أي ستيت نقدا حنقول أديدا حنقول لا جانغا وصوص عتا وصوص عتا يلا رأسني وهذه لكن شعبه كعان وهذه غيرتك كعبي هذا جامعنا كم بحري جامعنا كم بحري أي نقدان ضف in the front أو حنقول officially أو أكلي عرفت ده لكن هذا نقدان هو عقدة هو الشوجة هو قبيل كه هو الشوجة هو محنقول عشان تسمع بعد ما تيجي هوسفردية هو مجاهد هوسفردية هو قال شعير هوسفردية هو لو يريو مستقبل كوجا هو لو يريو وحي مثلا رالي كاهين هو أن كهذا فهمته هو أن محنقول أيه كهذا محنقول على بتوي كتير هو دقة فريسلا هو هالك وحكا أركا عدد تدخل نقدان سومالي مد نقول ما يصدق لكن ما حيكون ذوبيسا محمد كنا قريسا وحمد كنا قريسا مركز دفع الدفرويين ما كان دليرتو كعان أي عندها فران أي فيشن يشان أي ديود ولا شان قالان ما إنه تقبل بان داودي جامعة عمود كان لسه وصور بقدرنا إن شاء الله هدي الله وطره وقلاده قبل أسي يعني واحد كهندسي واحد كذي واحد نهي قال يارو دليرتو محبات هي دلكي نمو ديما بيتي دلكي نمو صن ديما بيتي وي ستيل alive وحاله نقرها بيتي إنه قال نقرها بقى إنه dadka iyo dalka noolayno oo Soomaali mid ka dhignaytay wali ma arkin intii camud alga qalan jeeminayay gabadh saaw hadasha wiil saaw hadla ma arkin gabadh baa saaw weesho ay aamusan gabadh baa tiri war wali still alive dalkeenni qarankeennii Soomaaliya wali musan barbaray wali gabadh ka geesisan ma arkin jaamacadda camud qalan jeeminteedii ka hadashay waa soo dhigi doonaa toddobaadka dambe ay ku soo qaadan doonaa barashada ku soo qaadan ka mid tahay يعني ولي ما أركين قبل كجيسي سنة أو كل واقعة عدالة درجة كتيرة دولها يبغى تذكر هايستا تذكر كسر لا راح توين تنام كفر ده وعسوق عتاي ما هبير جت محمد هاي محمد هاي ودك لا ماليزيا ما هبير محمد نيك كساري يبغى تدي ماليزيا هايستا سنغافورة نيك كساري جابان نيك كساري الدولة الهرم مرتين تذكر هرم مري الشخصيات اللي غيرها هبتي أو صبحي أو وجان كتبتي أو مده جميل لكن نين قبيلات هوس بديا نين قولك هوس بديا جميل ضد نجارسيني نين كم حساب تمية كله غير كيجا سلام تايدا بهم هايدا إنما لا يدا سيديا شيء قلتوا يا شان حكوا درجون قلتوا يا حكوا بده جارسيني where they go تذكر يوصل تذكر من فكرين وعقل الهاي عقل كده تذكر كم مرة ميال يدرك في عقل يجيب لك بوشي ninka waxa hoos fadhiya ilaahay ugu dhaariyay isaga ninka dadka waxa hoos fadhiya ee system iyo nidaam haysta waxaas hada waxa meesha ka jira la daawada waxa meesha ka jira
مفروض بقى بسوا بين بين بني كاس الشيء خاطر تصنع بين الشيء شنتي سوالف بقى يلا طبعا يلا ما جرت الصومالية يا كده وإيش هو نمبر 1 نمبر 1 ما حاجة صباح عقدات بقى صباح ما جرت ما جرت نمبر 2 قبيلات بقى صباح ما جرت ما جرت وحي بقى بيال بقى كشة قيس ما شباب فاميلي بيزنس سومالي نعيب ما جرى هبي غربات ما نعرف حلاقيا سومالي ندي شيء سومالي أنا ليس هذا البدن هبي اليوم أنا ولا هذا يا إن صار ضنوها ضلان أنا كم قاعد نيجي قوي مجاهد ما رحي مجاهد هبل إنه مجاهد بين بالقبول يهي يو خيالي سومال نبرنا إلى هذا الدين كان نكمل ذا هنجرني ورانا واحد آخر بالود واه المجلس تصل عنصر نيمو مجلس أنا سمجلس تبي مشاقية قالوا تعال إسماعيل اللوقية عد كسر خنيس نوقد دونا خنيس بلدونا يا لي أقرب اعترافي الدنيا جديدة رجع الدنيا كسلام واي كولين باول بس سلام واي إنك هرجس له بتدور يسافر لو سافر عليه بوريغا مورغان سافر لو سافر عليه قال لو سني كولين باول أوني قال يا جديد ورينو دعنت هذا ما سلام يوني نوعني هيه والمانيكا سوا عدم بلقيه سي مركز والمعلم بلقيه سي سوا نيكا هلو السلام عليكم وخدك ستة أستاذ قدتها والله مقليا ما حد كقيب جلسة ضوضة أتو مت الصومالية ضم والسلام يا أديك برنامج أد ديننا أد بقول سلام يا وكاخا صاحب أد ما صنطي ما عاجك جبتوتها ما عايز وخالد محمد وحبس وانا وضع الجرم هو كوسو عولا خضرو أكثر شيء واحد كان بيسوق وناكسن ومض فايدة وحنا رجناه ضد أنت معها أنت حنون وحوي المض وبينا يلا لكن وحوي وناكسن وحباكم اسمه وضد وحوي هذا واحد كنت تجربه أنت وناكسن وصل لعبنا هاي صرت أدبان بورينا يانا سي وضعنا وحوي هاي أو مض برار بستان كوسو عولا هذا برنامج خصوصا نقضاء وحنا هنا أيام ضد واحد صعب سنتاي طبعا قضاء وواحد من هذي مدة الصوماليات وإحنا عسينا يا مدولة لماذا بن عسينا ما نقدر نطلعها طبعا exactly كوسو عولا رنتي سياسات ظهرت واحد ويا من هاي السيدة ذا واحد اللي ذا واحد كل سنتاي يو واحد وين وضطشي أفرت كيسنا قدام بيا ما صدق كيسنا قدام بيا واحد صمارة قلت عاي واحد لذا نباتون واحد هذا تلقى الضوء كل نبات جرو واحد جرو وحي معك وحسوس هذا كلام منافعات العابة هيا كجرو ساتر كيف مصر الصومالية واحد قلت عاي نباتون كواحد قصة وضعها وحي اللي سياسة أما ضد في مركز سياسة gacanta ku hayay ama dadkii hormood oo ama dadkii leadership kaaba waxa ku dhacay waxa la misunderstand ay ama qalab ay fahmeen siyaasadda ka fahmeen si wanaagsan saadarteed waxaan aragnaa maanta siyaasadda Soomaaliyeed inay ku dhisan tahay basically inay qabaayil ku dhisan tahay si wanaagsan oo mid kasta oo maamul qabtay in uu marka dambe intuu wanaagsan intuu soo hadii la furay waxa weyn maxay markuu wax raadinayo ama markuu waxa weyn maxay xil raadinayo soo bandhigaya wax qurux badan oo ummadda waxa weyn maxay ka gadnaayo markuu wixii gato waxan uu kursigan uu gato ama booskiisu ciisan wuxuu u xiibsiibanaya min jeclaysi iyo hadii la furay maxay qabaa'il iyo waxa weyn in waxa beeshu ka dhashay ama heerku ka dhashay inuu sii kala buro oo hadii la furay sidii waxa weyn qasha camal u sii dhala baashi taas ayaa waxay keentay in nin walba ama qabaa'il walba inuu hal meel ku xidho ummadda Soomaaliyeedna waan aragnaayo isma diidano oo ninka waxa weyn maxay Soomaaliland jooga ama ninka ama Soomaali koonfur jooga ama ninka jooga NFD iyo waxa weyn maxay Soomaali galbeed ninka joogaba iyo ninka Djibouti joogaba isma diidana shacbiyan isma diidano way wada ganacsanayaan laakiin waxa isdiidan in yar oo siyaasi oo isku diidan iyagu danaha iyo guriga isku hayaan isku diidan
ayaa ummadda wax kala dhex dhigay intaasina waxay inta yar ee waxa weyn la shaqaysanaysa u buuxin gaadhsiinayaan ummadda kale faa'iido kale ummadda u hayaan malaha that's why maanta ma jirto meel Soomaaliyeed ama dawlad Soomaaliyeed ama maamul Soomaaliyeed laba boqol oo maamul baa ka dhisana maamul waxa weyn haddii Ilaahay ku rooyahay ee danihii shacabka ka soo baxay oon odhan karna maamulkaasaa alla ilahe dana shacab ka tiriyey oo aan odhan karno magacaabi karna maanta ma jiro oo cadaalad iyo sinaan ummadda ku dhaqaya ma jiro Soomaal ma jiro oo walaal haddii cadaalad iyo sinaan ay ku dhaqayo waxaa imin lahayd inay ummaddu ay hesho waxyaabihii aasaasiga u ahaa ee daruuriga ahaa ee bulshada u baahnay sida caafimaad hadday tahay waxbarashadii oo firiya hadday tahay ilaahay ku rooya waxa weyn maxay heday hadday tahay waxa weyn maxay heday shaqo abuur hadday tahay wixii hadday biyo ay tahay wixii ummaddan daruuriga u ahaay ee ummaddu loogu adeegi jiray ee dawladnimadu ay ku dhisnayd ayaa ummaddu ay heli lahayd haddii maamul saxo oo meel ku tiranaya si wanaagsan laakiinse waxaa jira maanta wax la yiraahdo waxa weyn maxay heday ka ururso waxa weyn waxaad arkaysaa wasiir ku faanaya 40 milyan ya waa wixii adduunka waxyaabahaas oo kale maxkamada la isku keenaa oo waxa weyn maxay heday waa la isku dacweeyaa waa la isku xidhaayo musuqmaasuqa adduunka waa laga yaacaa oo inagana Soomaalidina maanta waa ku faantaaba waxa la leeyahay ninku aduna Turkiga wax taraynin waxaan ku dhahaa shaqada laga qaado yaa la marayaaba dee waxa weeyaan walaal waxaad arkaysaa reer dhan oo kule war hebel waxba ma cuni karo oo waxba rag lama qaybsan kara nin wax cunaya meesha aynu geysano waa waxyaabaha ay dabeecadna ku dhacday weeyaan marka waxa keenay maanta qurunka qabyaalada eexda iyo waxa in la dugsado soo dadku madaxan may qabatin dadku hadii isbedel doonayaan soo dadku inay waxan ka hadlaan ma aha way ma taqaana ay diidaan idhahdaan war waxayna ma anfacayo dadku ay dadku ummaddu soo xulato cidii xukuminay Soomaa walaal waxa weeyaan ummad intaasoo nin oo Soomaaliyeed oo xukun soo maray lama waayin hal qof oo ka wanaagsanaado oo siyaasiyiinta kale ka aragti duwan lama waayin laakiin waxa jooga meesha reerka ama cidda uu ka soo jeedaa waxay kula talinaysaa waxan inuu musuqmaasuqaba that way bulshadu iyada ayaa musuqmaasuqa diida iyada ayaa waxa weeyaan maxay leadershipka saxda laakiin bulshada Soomaaliyeed waxaad arkaysaa iyadoo reer hebel sanadkii hore sadbursi sameeyeen maanta sadbursiga aynu sameeyna iyagoo leh ayaa waxay kula talinayaan halka leadershipka ka soo baxa reerkaas ama Soomaali maadaama Soomaali qabayl tahay ninka ka yimaado waxay kula talinayaan intay reer hebel cunay in la adiyo in ka badan inuu cunay kula talinayaan marka meel wax laga sixi karo ma aha ee waa in ummadan horta ay la wacyi geliyo waa in aqoontooda la dhiso waa in waxa weyn loo dhaadhaco xataa heer geedka hoosteeda wax loogu bara ay gaadhay miyiga jooga iyo ka magaalada jooga walaalo waxaa ka yimid gobolka awdal baa ka yimid marka xaqiiqiyan laga hadlo waxa weeyaan maxay meesha wax ku soo bartay waa gobolka awdal meesha waxa weeyaan maxay ku koray waa gobolka awdal waxa weeyaan maxay hayday dhalasho ahaan haddii la yidhahdana dee waxaan labada waan u dhashay kilarka shanaad iyo gobolka awdal labadaba waan ka soo jeedaa waan waxa weeyaan maxay waa meelahaasaan ahay moogtahay si fiican waxa weeyaan nabad baa ka jirta waxa weeyaan maxay deganaansho iyo kala dambayn iyo sharci baa ka jira haddana walaal markaad aragto waxyaabo macquul ah oo markaad isweydiisaniyo maxaa waxbarashada kugu kalitayay aad oranaysaa jira sababtoo ah waxaad arkaysaa nin wax soo baranaya oo ilaa waxa weeyaan maxay primarygiisii ilaa iyo secondarygiisii ilaa iyo heer jaamacad wax soo baranayay oo lacag ku soo baranayay oo marka uu waxbarashadii soo dhameeyo ka bilaabaya maanta isagoo shahaadadii soo qaatay haddana dib uga bilaabaya halkii uu 12 sano ka hor uu taagnaa uu hadda weli taaganoo reerkii intaasuu dhan gacanta kusoo hayo uu haddana dib wax u weydiinaya ayaa meesha ka jirta dhammaan ummadda Soomaaliyeed dhanna way la qabtaa gobolada Soomaaliyeed dhan baa la qaba 18 gobolada Soomaaliyeed la qaba iyo waxa weeye inta ka baxsanba ama geyiga Soomaaliyeed joogtaba mashruucaasi waa ka jira okay adigu waxa ka soo jeedaa gobolka awdal Somaliland baa marka adiga meesha deegaankaaga oo xukunta
somaliland qodobadaasi halkaa ka soo baxaya ee qalinka lagu sameeyey somaliland ma dhaba mise waxba kama jiraan horta iyarbaa kaas iyarbaa horta waxa weyn maxay dadka iyar ku qaldo oo kulley waa media marka media laga isticmaalayo kulley dad badan oo dhegeysanayo waa may dhegeysan doonaan jira waxa weeyaan axmed sucayb batin leedahay mar walba wuxuu ku celiyaa war anigu waxaan ahay maaragtay maxay mar waxaan ahay hargeysa iyo boorama labada war labada garbood oo waa hayb leedahay moogtahay haye saa darteed waxa weeyaan anigu dadku waxbay kala saaraan oo xagga aabbaha uba ku xidhiidhiyaan soomaalida dhaqanka cunay soo galay weeyaan biyahan si fiican dhinacii hooyada iyo naaskii iyo waxa weeyaan maxay waxyaabihii wanaagsanaa halkii qofka bini aadamkii ka ababayay iyo meeshii uu ka hana qaadayay waa la iloobayba si wanaagsan aniga aabbahay wuxuu ka soo jeedaa waxa weeyaan maxay magaalada jigjiga filar shanaad ama soomaalida etoobiya hooyadiina waxay kasoo jeegtaa gobolka awdal saa darteed waxaan ahay kolley laba gebi baan labadaba u dhexeeya moogta laakiin meeshaa kusoo hana qaaday ee wax kusoo bartay waxa weeyaan maxay aan lagu soo naasnuujiyey baa meesha si wanaagsan saa darteed waxa weeyaan maxay laakiinse meesha wax kusoo bartay iyo calanka kusoo bartay waa calanka soomaaliya waana meesha waxa weeyaan maxay aan meesha ama ubaxa inta badan wax kusoo ay wax kusoo barteen ama manajkan wax kusoo qaadanay waa manajkaas weeyaan marka walaal waxa weeyaan maxaa hayday meeshuu doonaba soomaaliya ha jooge ama nft ama soomaali galbeed ama jabuuti ama somaliland ama meeshuu doonaba ha jooge isirka soomaaliya meeluu joogaba ulshu geedku marka la beerayo haddii uu kaa qaloocsamo oo intuu yaryahay aad qalooca aad waxa wey toosin weydo markuu weynaado ma toosin kartid ilaa aad jarta mooyaane si wanaagsan marka walaal soddomiyadii sane ugu dambeysay baa siyaasadda soomaalidu ay qaloocsantay ilaa qalooca laga saarana siyaasadda soomaalidu ma hagaagayso marka waxaad leedahay alifka axmed albaqruuq dhiga baad leedahay ha waxa weeyaan maxaa yeelay walaal waad aragtaayo maanta dee africa iyo waxa weeyaan maxay adduunku waa isbedelo ma jiro wadan 100 sano ka hor halkii taagnaa uu taagan ma jiro ama halkii uu taagnaa hoos ka soo noqday waa yaryahay marka inagu meesha aan taaganahay maanta nabi aadan haddii dib u soo noqdo meesha kaliya uu garanay geega soomaalida jirta ama dhulka soomaalida jirta jiro oo meesha kaga dhig dhagaxii baa weli yaallo dhulka kale oo wala saa darteed waxay noogu wacan siyaasad xumada inoogu wacan waa siyaasiyiinteena waa cuqaasheenna siyaasiga laftiisuna in la ataago maaha cuqaasha laftigooda in la ataago oo iyaga laftigooda la saxaa u baahan waxa meesha wax ka qaldamana waa cuqaasha si wanaagsan marka aad waxaad leedahay inuu calankaas wax ku soo bartay waxaa jirana waad arkaysaa dadkuna in la saxaa doonaysa waxaa ka jira Soomaaliya mise waxaad leedahay wax la saxi kara ma aha waa wax mataqaana u baahan waqti dheer iyo maxaan ku radaa maamulka iyo wixii ka jira maamulka soo waastaa hadii Djibouti tahay hadii Ethiopia tahay hadii kay maxaan ku radaa Puntland Jubaland Galmudug meel walba intaas hoos taala intaas meel walba hoos taala calanka waxa ka soo baxaya meel walba marayar baa la sameystay reer baa marayar sameystay marada wax ka soo baxaya waxa iyo wax ka sii xun baa ka soo baxaya marka waxaan rabnaa dhaqanka in la bedelo oo ummadda Soomaaliyeed ku baraarugto inaan waxaan wax jiraan ahayn ummadana meel gaarsiinay in la bedelo rabnaayo sababta walaal waxa horta siyaasad marka la yiraahdo waxa jira waxa la nation wax la yiraahdo iyo waxa jira wax la yiraahdo maxay day state government wax la yiraahdo nationku waxa weeyaan waa qowmiyad waa dad isku afa isku diine isku dhaqana waxa weeyaan maxay day isku culture state government-guna waa maamulka markaa la dhistay weeyaan marka inaga waxa inoo jooga walaal Soomaalidu halka kaliya ka dhisanta waa nationku waxa weeyaan macnaheedu waa dad Soomaaliyeed isku afay isku dhaqanay isku diinayno haysanaa oo intaadan dunyada kale aan ku baabi'i weynay mooyaane laakiin state maadaama inaga maqan yahay haddaynu maanta ahaan lahayn dad sida matalan Ethiopia iyo Kenya iyo wadamada ma arka maxay isku jirka ee waxa weeyaan maxay hayday federation ko kala hadii ahaan lahayn mar hore aynu burburayno khariirada inta bixilaayn si wanaagsan tasamaata inagu sii hayso waa nation ka anahay oo waxa weyn dad waxaynu nahay asal ahaan meel ka soo jeedo oo aan wax kala faquuqaya iyo waxa weyn maxay wax isfahan la'aan ay naga jirin oo ganacsigeena sax socdo oo aan xor ganacsigeena iyo ninka muqdisho ka soo ganacsi taga Hargeysa ka ganacsanayo ka Hargeysa ka taga Jijjiga ka ganacsanayo Boorama ka ganacsanayo Jabuuti ka ganacsanayo
wajeer iyo waxa weeyaan maxay ahayd kismaayo iyo garowe ka ganacsanayo waxa weeyaan walaal ummad nationkii baa inoo dhisan laakiin state governmentigii baa inaga maqan meesha state governmentiga haddaan helnana waxa weeyaan ummadan meel fiican bay gaadhaysaa horumar baynu gaadhaynaa waxa weeyaan maxaa ahayd waxaase u baahannahay dadkan hadda wax la barayo ma aha in keliya dhaqaalaha laga gurto oo waxa weeyaan economical creative in lagu sameeyo oo dad gaar uun ay la naafijiyeen maaha hadda anu waxaan arkaa jaamacadaha ninka la furanaya iyo waxaan barayfadadan jaamacada la furanaya waa dad baa business ka dhigtay waxbarashadiiba business gashay waxa weeyaan nin walba reerkiisu inuu kaa biishada rabaa inaa dhintuna shahaado yaroo waxba aan qabanayno waxa weeyaan maxaa adigoo waxa weeyaan illiterate oo waxna aan qorin waxna aan aqriin ba shahaadada iska gaadhiibaya taas ayaa waxay keenaysaa qofkii markaa inuu meeshuu doono waxa weeyaan maxaa uu gidaar ku dhufto marka waxa weeyaan dadka wax la barayo waa in wax anfacaya la baraa waa in wax mustaqbalka ehelkiisa iyo qaraabadiisa iyo mustaqbalkiisa reerkiisa wax tara waa in la baraa laakiin haddii la baro un qofkii keliya waxa weeyaan maxay tahay 12 subject baa lagu dhigaya 12 subject wax macnay sameynayaan ma laha maanta dhan wax la qoraysa haddii taas ayaa macno darada inagu caro aqoonteedii baa liidata dadka hadday aqoonta ka liitaanna waxa weyn way burburayaan oo dib uma soo laabanayaan taas ayaa aan ummadda Soomaaliyeed ku boorinayaa in aqoonta macno loo yeelo in siyaasadda qofka soo galaya la fiiriyo historygiisii hore iyo taariikhdiisii hore in la fiiriyo oo hadduu ilaahay kuu rooya backgroundkiisii la akhriyo qofka marka backgroundkiisa markaad akhrido waxa weyn wixii wanaagsanaa iyo wixii soo xumaa ee qofkan soo maray buu ayaa kala garanaysaa marka waxbana ama waad aamini ama waa aamin daraa kuu dhiciyo waa waxa weeyaan waddadaas mar odhan waa iska leexin qofkii laakiin haddaan jeclaysi iyo reer hebel iyo intaasoo kursi bay noogu jiro oo dhan siinayaa iyo haddaa waxaanu ku dooranno horumar gaadhi mayne saasaan ilaa iyo aad baad umahadsantahay guddoomiye waana kaaga macin raygaaga aad iyo aad baa umahadsantahay aad baan u salaamaya ummadda Soomaaliyeed dhammaantiin buula waa mahadsantahay thank you very much kaasi wuxuu ahaa wiil Soomaaliyeed oo jooga dalka Germany oo khadka telefoonka nagu soo wacay si uu fikirkiisa uga dhiibto sida uu arko qodobadaas iyo 10 qodob ee Somaliland iyo Soomaaliba ay hoos fadhido 10 qodob not only Somaliland ma hoos fadhiyaan Soomaaliya ba hoos fadhida 10 qayb ka badan bay hoos fadhiyaan Soomaalida hoos fadhida oo ay qurun wax dugsanayaan qolo dugsanayaan waxa si wada dugsanaysaa laakiin waxaan ka hadalnaa maanta specific waxaan ka hadalnaa gobolka waxaan ku raadhay waqooyi galbeed leedahay waqooyiga Soomaaliya leedahay oo dad badan ay u yaqaanaan Somaliland qaranka dugsada waa kaas weeyaan ninka ka dugsanayo oo salaamantahay ninka ka dugsanayo waa kuma waxa dugsanaya ninka Muuse hoos fadhiya waa kuma ee inta dugsanaya waa kuma ee qaranka dugsanaya kaasi ma qaran ba kaasi qaran ma noqon karo waxa qaran noqon kara wax ummadda wada leedahay waxa qaran noqon kara qaran ay qabyaaladu ay ka maran tahay qaran ay eexdu ka maran tahay qaran ka maran tahay wax kasta oo dhibaato u keenaya shacabka ku nool waqooyiga qaran ay ka maran tahay waxaan ku raadayay cunsurinimo ka maran tahay ayaa wax noqon kara qabyaaladu ka maran tahay waxaas ka maran yihiin qaran iyo qabiil meel ma wada galaan reehebel ba talaya reehebel ay wada gulay talaya reehebel ay nin talaya reehebel ay umad ku maamulaya ummadda meel ma gaarsiin karo rag badan baa raba waxaan ku raadayay isoo qabta waxaan leeyahay rag raay isoo qabta halkan iga soo garaaca waad iga soo garaaci kartaan messengerka waad iga garaaci kartaan whatsappka telefoonka caadiga inta waad iga soo garaaci kartaan marka dhammaantiin waxaan leenahay ninka raba inuu waxaa dugsado qaranka harsaday noqonaysaa qaranka harsada dee qurunka harsada qabiilka harsada eexda harsada qabyaalada harsada mujaahidnimada ha la harsado mujaahidnimada Muuse waa in la harsado markaasi oo harkiisa hoos fadhiisto weeyaan rag badan baa halkaa hoos fadhiya aqoonyahan badan baa hoos fadhiya mujaahidnimada Muuse meel u socotaa ma jirto soo oodantay oo handaraabantay adduunka oo dhan baa ogaaday intaas in ka jirto Somaliland yaa ictiraafaya waaniga idhay nin kasta oo Somaliland xil ka qabta xawar buu tagaa next day wuxuu yiraahdaa wax Somaliland leeyahay ma jirto caruurtan ka biishanay buu kuleeyay nin kasta marka maanta ka tuuro xilka badoo fiirsada ka soo bilaabada balada ka soo bilaabada Cabdiraxmaan Tuur ka soo bilaw Allahu naxariiste عمود مالين شاعر جوهر مالنتي حلك لقى قاضي نيجس مورنينج وحده تجي موضوع شو كدقي يقول نو مور سوماليلاند wax meesha ka jira caqdad iyo qurun iyo eex iyo qabiil baa ka jira buu runtu ogaaday
imisaa ka tegey foosiya kamida imisaa ka tegey kamiya wasiire ka tegey rag xisbiyo ka ahaan jira xisbiyo ka dhaceen ka degay maxaan ku dhahay muqdisho imisaa wasiire ka tegey imisaa agaasimayaal ka tegey baan dhigay imisa you name it ninka tegi waayo waa muusena meel buu socdaa ujeeduu leeyahay ujeedadiisu waa maxay muuse inuu imberaadoriyad yar samaysto oo isku xidho heegada Djibouti iyo heegadaasi isku xidho Hargeysa fadhida intaasoo muuse rabaa dreamkiisa muuse waa intaas dreamka muuse waa labada heego isku xidhma heegada lama baahna heega burco way ku daysay burco heegadeedii way ku daysay heegada loo socdo heegada Djibouti ta loo socdaa ee main targetka ahayd waxa weeyaan waa Djibouti heegada Djibouti ka jirta iyo heegada ka jirta mataqaanaaye ka jirta maxaan ku dhahday guriga Morgan ayaa rabaa la isku xidho waana la isku xidho waa ninka hadda inyaarkay cadaynteedii waa inay hadda sheegay Cabdi Fataax oo garanaysaan baa yidhi halkaa wax ka soo wada wakiilka hal la isweydiiyo bulde toos wax iga baro ku baraarug sheekada waxa yaala ogaada waxa jira ogaada marka taasna isku dhaafayna haday noqoto haday Soomaaliland qaran tahay iyo haday maxaa tahay matalan qabiil laan tahay iyo haday matalan heega laan tahay iyo haday matalan maxaan ku raadayay mujaahid laan tahay iyo haday tahay maxaan ku raadayay qaraabakii laan iyo haday tahay shantii Soomaaliba dhimatay haday tahay matalan waxa aad arkasaan operationkaasi aad arkasaan sidoo dhacay successful ha operationkaasi waa success operation buu ahaa maxaan ku raadayay سيجري قال قصي حاكرا شوالان وا successful وير وا غوليستي وا successful حاكرا سيجري وا حلنا نينكي سميي هawsha galay dhaqtarka hawsha galay waxa leenahay waad ku maasantay exactly waxa jira sheegtay exactly waxa jira ka jira Somaliland dhulka la gobolada waqooyi basoo yaqaano Somaliland maxaan ku protectorate ama Somaliland British protectorate ama Somaliland ama gobolada waqooyi basoo yaqaano waxa ka jira waxaas weyn meelo badan oo Soomaaliya ka jira oo ka jira waxaas ka jira laakiin halkan waa ka sii xag jirta extreme weyn ka xigo marka ninka dugsanayo adiga leeyahay baa ninka dugsanayo waxa soo adiga leeyahay baa adiga leeyahay saaxib adiga leeyahay taasi waa taas waxaan soo qaadaynaa hadda ku xigta oo inoogu xigta oo miiska noo saaran waxa weey adigu dharaaraad ka qostaysa doosha amba dhamay qaraarkii waa inaad dhadhamisaa amba dhamay qaraarkii bitalla iskureega wayno dhaxaysayo adigu dharaaraad ka qoslaysay dooshee sidaan galay qaymaha ku dhuntee annadii sidaan galay qaymaha ku dhuntee soo awadaantiyo soo awadaantiyo soo filanaysid soo so filan may sidel so awadan tiyo so filan may so filan may so filan may sidel si fiican waa lagu maqlaa magacaaga ka jirta walaal السلام عليكم دقيقة كلا سهلا يا وتاون دقيقة كل شو دقوا برامج محل كي قبل جلسة وحن كهذا اللي دور قضب كورة وها سوماليلاند أو قليل لقوا سميه وحكي صباحنا نقطة عقدات يا يا قبيل يا قرابكيل يا مجاهد يا قال تعايل يا وحنا قرينا يبقى صباحي وحكي لهم هذا أنا محمد كرادين لنا عبد الفتاح أو معمر كهرجيسة جبوتي وشوغا هيجلان تجبوتي هيجلان تهرجيسة واسكو حرمي أو أوبريشن كوضا قبل كعوضة إثيوبيا سيادو أركتا إثيوبيا سيادو أركتا حالة كسرعتا إن بدن بي مثلا إثيوبيا أما تكريغو أي قيبيين صومالي دا أو تلبتيربو قيبشين ما أنت رقي قيبي نينشال كتير أي واحد نقول يعني مثلا لو دبتشلو سيادو أركتا رماس كسرعة
horta dhammaan waxaan salaamayaa asxaabta galbeedkiisa inta daawanaysa inta daawanayntaba aad baan ku salaaminaa haddii aan fikradayda ka jirto horta waa tuu horeyso sheekadu waxa weeye dhalan habaabistii iyo maxaa la yidhaha maamulkan yare odayga yare komiseerka la yidhaha haystee somaliland horta waa soo gabagabowday si wanaagsan in badan baan ka hadlaynay dadka shaarka dawladeed loo xidho go-ayse horta marka adduunka maanta loo yar fiirsado jabuuti wuxuu yidhi ciisa anigaa leh inta qoomiyadada ku noolayna waan garanaynaa meeshaan ku deganahay waan wada garanaynaa marka la yidhaha hargeysana isaaq wuxuu yidhi anigaa leh siday doonaan baa isku iyago isku kala qaadqaadaan muqdisho waanu jeednaa intaa dee maamul goboleeda dhulkaa kalena tirinba kari maayo ilaa iyo dawlad deegaanka soomaalida qolaa samaysatay marka haddaba marka ay noqoto gobolka awda la yidhaha iyo qoomiyadda gadabuurti marka la yidhaahdo ay u dhaqdhaqaaqaan amba inaan telefishoonka ka hadla ha noqoto amba tv ka hadla baahidooda iyo waxyaalaha dantooda ka hadla marka ay noqoto waxaan la yar yaabaa markay labada qabiil ee ilaahay jaarka kala dhigay ay ku soo hirganayaan si ay gobolkooda u baabin lahaayeen ninka buuran ee safiirka jabuuti ee safiirba jira dee waa safiirda u kala heegada iyo heegada wax u kala qaada weeyaan safiirda umada dhigato dawlada dhigatoon dee naqaano waa naqaanaa waa safiirka gabaarada soomaaliya haye markaan dhinac aan u eegno waxaad moodaa maxaa la yidhaha ana intaan dhinaca ka cunay adna intaa ka cunay meesha ka socoto si wanaagsan stiil weli soomaalinimadii baan ku dheganahay war waxaan wada cunaan wada noolaano dad ilaahay jaar inaga wada dhigay baa nahay dadka ilaahay halkaa dhigay dee ilaahay baa meesha naga qaadi kara cid igama qaadi karto la igamana tahriibin karo goortu ilaahay iga tahriibiyo ma ka tahriibi laakiinse duulduulku wuu batay si wanaagsan jabuutigeedana waxay u samaysayna waa dhulkan reerkan ay leeyihiin waan la soconaayo luhayiga dhinaca dad baa damac iskaga jira oo aad baan ula soconaa xaggan kalena aniga xagga damce adigu xaggan kaale oo damac oo adiguna intaa qaado aniguna intaa qaado sheekadu way caddaatay dhowr sano ka hor baa la sheegayay shicibka jabuutina kama sino shicibka kale maxaa la yidhaha meesha waxa wada degay ciisiga jabuutiba isdhalayba kama sino waan ognahay xaqiiqatan kama ihin maxaa la yidhahaa dad baan mashruuciya u samaynaya oo dad baan wax u samaynayana kama ihin waxa weeyaan heegada jabuuti baa soo daba gaabato waa xagga iskaga jeediyo dhul inibaad leedihin buu gadabuurti qaadanaya qori qaatay in la yidhaho inan iyo abtigii iyo dad isdhalay laga kiciyaa la rabaa halkan dagaal cusub baa la amurayaa dagaal cusub ta etoobiya ka dhacaysana inay ku heegada ku lug leedahay waan ognahay halkaa ka dhacaysa maanta 30 qof oonan naga inay horta tacsiibaan halkaa u marinayaa dadka inuu ilaahay sameeyo iimaan ka siiyo awna taasoo kale ku soo celinin oo xaqdarrada labada reerood bay iskaga hortageen waa dad xaqdarradii ku daatay waxaan odhan lahaa ilaahay horta haw maxaa malmaliyo intii dhimatayna ilaahu naxariistay inta kalena allah kala qaboojiyaan leena aamiin insha allah taasoo kale inaa halkan laga abuuraa la doonaya halkan waa la ogyahay dadka ilaahay dhigay ee ilaa iyo dawladdii ismaaciilisa ee deganaa ma diidan anigu inuu maxaa la yidhaha ciisa deganaado meesha laakiin dad kale waa la ogyahay maxaa maanta keenay ta kale labaad waxaan u sheegayaa ninkan wejiga problemka ku leh safiirka isku sheegaya ma dhulka gadabuurti buu safiir ka yahay isagu oo dawladda maanta waa halkay ka socotaa dawladda tiri maanta aniga muuse biixiyo jabuuti baa ka wada hadasho halkan baan dhisaynaa dadkii gobolkan lahaa lagala hadlin dadkii masaakiintii meesha deganaaye dani ugu jirtay aana weli waxba ku ogeyn halkay ka timiday taasi weeyaan horta si wanaagsan heegada waxaan u malaynaya calankeegu inuu dhacay siday doontaba ha u dhacdee qaar baa yidhi haynoo dhisaana daaya bay yidhaahdeen waan markay dhammaato ayaan shaqadayna qabsanaynaaye shaqa la qabsan maayo lana sugi maayo haddii halkaas waxyaalaha laga wado ummadda la isku dirayo ninkii ilaahay meesha dhigay 70 milyan waa la ogyahay ilaa iyo taariikha ay ku qoran tahay ninkii ilaahay halkaa dhigay aflagaadada iyo daandaansiga halkaa kasoo bilaabmayna shicib jabuutina lama shicib kalena mahine waa heegada hargeysa waxa halkaa ka wada waxay doonaysaa inay bariga duwarama ka faa'iidaysato waxa meesha yimiday reerkaabaana odhanin annaguna maamul baan samaysanaynayo quwad ma lihino
in maxaa la dhahaa darashana ma lihino waxbana iskaba celin karaane waxbana ma qabsan karaane labadeena hareeraha kaalahan kala goosanaya waan sheekada maanta aan u arkaa Umarow si wanaagsan laakiin waxaan taas odhan lahaa hubsiimo halbaa la siistaa baan odhan lahaa heegada yare ee Somaliland iyo heegadan kaleba ay isku shaqaysanaysaa ee halkana hargeysana naasaa dumarka xabadda kala dhacaya aniguna waan cunay adiguna u noqon maysa hubsiimo halbaa la siistaaye geelow waxaa la yidhi daaqo markaad gamoor daaqday kugu daran tahay si wanaagsan dawladda Somaliland isku sheegtay inay gadabuursi ku dhisan tahay horta waa inay ogaadaan maalinta dulduulkan iyo aflagaadada intaa la ega la tuqtuqayo qofka sida loo gujinayna maalin unbuu sare kacaa maalintan anu sare kacana run bay dawladdii xamar halkan uga dhalanaysaa run weli anigaa wax dambabasaya laakiinse waxaan leeyahay fadusha halkaa ka soo socota dadka maxaska halkaa degan iyo dadka la isku kicinayo waa inay iska fahmaan heegada halkaa bari ka timidayna waa in la iska qabto heegadaasa waa furinaysa annagu haddaan nahay shicibka reer Jabuuti waxaa halkaa laga wado dadkaygiiba wada degan waan ognahay dad ana waxaa warba ka hay weeyaan dadkaasi waa xagga waa lagu jeedaa waa laisku soo jeedinaya labada dhinacba waa lagu soo jeedinayaa Umarow halkaasaan kaga bixi lahaa waxaan leeyahay hawle waxaa u taalaa ninkii halkaa deganaa in la sifeeyo isaga oo fiiq loo qaatay iyo inuu dee raganimadii lagu yaqaanay dee Axmed Gurey xadiirtiisa halkaa ay degan tahay ay kasoo bixi doonto ayaan rajaynayaa dowladna kuma socono dad gaarana layn mayno in dad maxasana layn mayno laakiin se tuqtuqistaa badan haddii la joojin waayo haddee waa la arkayaa gadabuursina maamul buu samaysanaya waxaa laga hortagaya waa maamul gadabuursi inayna samaysan inayna lug dhaqaajinin inayna far kor u taagi weeyaan taasi way dhammaataan leyn oo wax kasta waan ognahay maanta nin kastaba dantiisuu ka shaqaynaya ana danteedan ka shaqaynaya qofka ila degana duulimaad kumeeyi kaygu dhex noola anuu ila nool yahay taasaan kaga baxayaa Umarow si fiican waxaa kaloo jirta marka ay noqoto Ethiopia horta Ethiopia Soomaali way gumaaday maxaa la yidhaha reerka imika balaayada ka socota Tigreega la yidhaha abaal nooma dhigin haddaan Soomaalina waxaan riyaamiyey maanta Soomaali quwadda Ethiopia ahaan lahayd halkaana fariisiyay iyagay ahaayeen laakiinse waxa ayaa loo baahan yahay inay ku taamilo qaataan dadka maanta dadka u dawladeynaya heegooyinka u dawladeynaya dadka isla maanta xoog leeyahay dadka waan ku sarfaliyo xoog baan u sheeganayo waan ku tumanayo sidaan doonaan u maamuli oo aniga hadli kara isagu ma hadli kara nin kale iyo tusaale u tahay still waa kristaan oo adduunyahaba garab jooga waa aniga arkaya laakiin kuwa aniga hareeraha iga ee doonaya inay markay maanta ay madaxweynenimo kursi ku fadhiyaan isticmaala haddii aan shicibka meel kastaba ku noolaadeen u isticmaalaya ma hadli kartid maamul ma haysatid adigu isma maamuli kartid adigu farma dhaqaajin kartid ana amiir la iyo tusaale u tahay Soomaalina waxaan leeyahay ninba maalintiisa wayna kuwana waa maalinta Soomaalina wayna doosha ka wada qoslaan marka waxaad leedahay heestaasi aan u saarnay ee leenahay mataqaanaa amba dhamay qaraarkee waa inaad dhamisaa waa xaq Soomaa xaq weeyaan adigu badarara maxaa la yidhaha noo dhigeen baan garanaynaa intay erdigii shaqsi Soomaaliyeed Soomaali galbeed Ethiopia ay hoos u dhigeen baan garanaynaa laakiinse walaalkii loo xiriyo adiguna soo qoyso weeyaano intoodiiba maanta bilaabantay Soomaalina waxaan leeyahay waa la isku soo socdaa Soomaalida Ethiopia waxaan leeyahay waa la isku soo socdaa Ethiopia waxay ku dhisan tahay waa gobolka Soomaalida Ethiopia ay ku kala socotaa waa dhulka Soomaalidu degan tahay maanta marka sheekooyinkaas ay bilaabmeen dhulka Soomaalidu ay degan tahay gobolkii doontaba noqoto baa lagu soo socdaa waa inay diyaar noqdaan waa inay iska celiyaan waa inay daafacaan annaga wax naga galay baa iska yar annaguna shalay baa shalay bay iyay maxaa la yidhaha keena way nagu dhigay annaguna maanta ka jarananaa ninku waa ninkii weliba dad gaar ay soo raacay ee boorama dadka iyo ku laayay iyo dila weeyaan si wanaagsan marka waxaad leedahay maanta waa maalintii dhoosha laga qoslo gabra adiga xukuumadii way dhamaatay seed u aragtaa in madaxweynaha kilalka Soomaalida uu yiri dagaalka hala galo
horta cumarow nin kursigiisa kolkol ku ilaashinayo maan u arkaa kowde hadda ka hor baa soomaali xaqayga cid u hadlaysa horta ma arkin sida u dhayin nin kastaba kursiga aru ku fadhiyay mishaarkiisa aran buu ilaashadaa awalba hala galay iyo u ordama lahaynina dee waa la wadaayo waa nin dee madaxweyne weeyaan karti weeyaan dad buu shaqeeyaa waa shaqaale weyn oo shaqaale dowladda waa shaqaale ma taqaanaa cid kale u shaqeynaya waa shaqaale weeyaan waxa Soomaaliya halka joogto dhan baa shaqaala waa telefoon baa loo soo diro waxa la yidhi Soomaaliya waa maalintii shalay wax lagu sameeyeen waxaan u arkayaa argosi siyaasad inay waxa ka dambayso oo waxyeelo badan la iskaga jeedinayo oo Soomaaliya la rabo inta dhan in halka lagu dhameeyo oo siyaasadda meesha ay ka socoto amba reer galbeedka kula jiro amba kuwan hareeraha iskaga jira Soomaalida sheeganayba hareeraha iskaga jiraan halkaas anu xal uma arkay waxaan arkay inay siyaasad kala faraha kula jiraan oo Soomaalidana maxaa la yidhaha kuwii u shaqaynaya kuwa una shaqaalihuna iyagana dirayaan oo wax faa'iido ay Soomaali u leedahay uma arka cumaro aad baad u mahadsantahay maxaa kusoo gabagabayn lahayd odhan lahayd ummadda Soomaaliyeed iyo shacabkii mataqaana aad matashay oo maanta aad soo jeedinaysaa leedahay war maanta fursad baad haysataan aad kaga faa'iidaysan kartaan xataa maanta Soomaali fursad bay haysataa ay ku midoobi karto oo ay ku noqon karto mid waayo Ethiopia wataa maanta arkaysaan holac baa ka baxaya qiiq baa ka baxaya dabka shidmaya waxa weeyaan wuxuu u yahay mataqaana guul buu yahay ummadda Soomaaliyeed waayo 30 sano 40 sano 60 sano Soomaalida ku nool Ethiopia waa la gumaaday ragii gumaadaya maanta holacaya ma isleedahay kuwii la shaqaysanaya laftoodu waa lagu soo socdaa nin kasta oo xaq bili aadan iyo ummad dhibayba inuu mataalo inuu dariiqa marayo ma dalka ma say kula taaliga aadi ninka maanta reerka fikree la yidhaha maanta ninka taageeray iyo kii taageersanaan jiray iyo ka maanta inay ninkay maanta xoole iskaga jiraan la shaqaystaba taasa isagana u dambaysa fariinna waxaan u dirayaa amba kilowka Soomaalida ha joogo amba dawladaha kale Soomaalida isku sheegayba ha dhex joogo fataalnimaha ugu shaqeeyo Ethiopia oo ha ku tunto masayrka ummadda Soomaaliyeed laakiinse waxaan la hadlayaa waa shicibka dawlad deegaanka Soomaalida gaar ahaan ku nool waxaan leeyahay war ha isku kala qaadqaadina ogaadeen amba ciisa amba gadabuursi amba wixii ku nool ee maanta waxa weeye maalintiinii haddii aad qorshe gaadhaysiin inaad aayiniina ka tashatiin oo sharaftii Soomaaliyeed soo celisiin maanta fursad baad hesheen waxaan leeyahay hadday Ethiopia kala socotana wayba kala socotay hadday kala socon weydana bal yarun inagoo isku duuban oo bari haddii duulimaad kaloo xamashadii timaado amba orama timaado amba elektriyaan yimaado amba ay sadaqada tigreebu yimaado si aad iskaga daafacdin oo Soomaali maanta looma dhici karayo gamcaha haysta si loo yidhaahdo oo aayina uga tashatin inagoo gamcaha haysta bal hanin la arkaan leenahay oo markay balaayoyin kale yimaadeen gaashaanbuurta naato kale aan noqdaa si looga hortago waxan oo dad midaysan gamca wada jir bay wax ku qabtaan hadduu kaas ilaani maxaa iga dalay hebel baa xagga wadiga hebel baa xagga iyo kan hebel baa xagga ku jira waxba Soomaalida iguma jirta waxaan leeyahay Soomaalida Ethiopia waxaan leenahay gamcaha qabsada inagoo gamcaha haysta halila arko inagoo gamcaha haysta hawluhu amba ha qaboobaan amba ha kala dhacaan waa inaad plan B iyo plan A weynay si haystaan baan leeyahay halkaasaan ka baxay kala labaadna waxaan u dirayaa qoladan gadabuursiga isku sheegta waxaan leeyahay waxaan u maleynayaa waxyeelo badan inay ni agyihiin haddee toole guulo badanna ay nii soo dhow yihiin waxyeelo badan oo hareerihiina iyo jaarkiina inaga xigina inay ni caddaadeen baan u maleynayaa meeshii doonaba ha joogo gadabuursi baan la hadlayaa waxaan leeyahay ninka maanta jaarnimo kugu dhowri waayey jiiraannimo kugu dhowri waayey cirdigan iyo sharaftaada la dagaalamaya amba isaabtinimada kugu dhowri waayey amba wuxuu doonaba ahaado kugu dhowri waayey waa nin gurigaaga kuugu soo galay baan leeyahay haddee nusaseerku in badan baan inagu ahayn waarbal ninka gadabuursi wuxuu u shaqeeyaa Soomaalinimo laakiinse uma shaqeeyo reerkooga maanta dhanna shaararkana waxa maanta wax hela amba laga cabsoodaa amba laga weecdaa amba la qadariyaa amba loo joogsadaa ninka dawlad meel ka haysta ee in adeerkii meel geeya amba tolkii meel saara amba
isku xeeriya dadkii sida ninka odayga kale odayga meesha haysta Soomaaliland la yiraahdo Muuse Biixi oo kale ee dadka kale ku tunta ayaa respect maanta loo hayaa waayo xaq iyo cadaaladii hoostay martay xaq iyo cadaalad ma jiro burka maanta wax ka celiya iga bayd afkood ka hadasho wax ka celiya waa lagu joogsanayaa waxaan u malaynayaa dadka halka ku nool qoomiyada inay waxyeello badan hadeedu cad yihiin inay arkeen baan u malaynayaa halka laga taagan yahay ay iyaguna lahaayeen abti adeer edo inay arkeen baan u malaynayaa waxaan leeyahay war waxaan laga arko oo nin gurigiisii loogu dhex galay waa kaaye wax idin hadhay ma jireen bal wixii lagu yaqaanay han laga arko ayaan leeyahay caawiye berina waxaan leeyahay gadaguusi uu jirayaa uu joogayaa duubkiisana cidibo ku tarkifali mayso kolka qofka u dambeeya oo dhinta waa lagu tarkifalayaa sidaas wey haddii la gaashaanbuur hadday sheekadii dee soo socoto maxamed bin axmed beed berigii dila lagu gumaaday boorama ciise bin axmed iyo isaaq bin axmedna noo sheego oo abtiga hana laga daayaan leenahay run baan jecelahay inaan wax ku wada cunno nin kastaba halkuu joogo oo iga taagaya inaan ogaaday maanta si fiican bay igu muuqata inay kolkayna ogaadaan baan anigu maxaa la yidhaha aada u soo jeedinaya waxaan leeyahay dhalinyarta iyo dadka halkaa ku nool ee gadabuursi marka milixdoodii laleeyahay meel baan usoo helaynaayo maxay in resourceka waddankan yaalla waxa iskale dadka halkaa ku nool ayaa iskale ayaga ku tarkifalaya ayagay faa'iido u tahay kale labaadna waxaan leeyahay dawladda Soomaali weyn waxaan leeyahay haddii ayna xuduudaheeda ilaashan karaynin haddii ay faraha ka baxday inay dawladda Soomaaliya ay ilaashato oo dawlad sideeda oo kale ay fargeliso oo dhulkeedii ana lagala tashanin ayna iyagu oo askariga yar ee qoriga ku haysta meesha ay uga hadheen xuduudahoodii adduunka maanta waa xuduudo wax lagu kala socdo hadday dawladda Soomaali weyn xuduudaheeda ilaalin kari weyday warqad yar ay qortaa ku filan waxaan leeyahay inaguna Soomaali weynay dawladii Soomaaliyeed ee ummadda Soomaaliyeed sugaysay ee weliba ninka raas cateed ilaa raas Kambooni dawladda Soomaaliyeed baa xukunta sida sharciyan iyo diiniyan iyo wax kasta waxa xukuma dawladda Soomaali weyn calanka buleega xukuma laakiin digmeeratan yar halkan ka soo baxday ee u soo shaqo tagtay shicibka yar ee saalka daran leh dhinacay doonaan ba ku noolaadaan qabiilkay doonaan ba ahaadaan waa ognahay maanta meesha waxa ka jira usoo shaqada hadii lagala hadli waayo waxaan leeyahay haddee toole waa la isku soo jeestay ninba halkuu dhigay ilaahay oo dhigay buu yaalla waxaan leeyahay indhaha la furo insha Allah biidmillaahi kariim nin kastaba wuxuu oo awna khayr ku jirin oo shar oo ku rabo uma suurta galayso laakiin maanta diyaar baan nahay sidii shalay maniin maanta diyaar baan nahay hadiya habeen baan u soo jeednaa dhulkayga in dhalinyartayada dumar haddaan nahay iyo cid kasta haddaan nahay waxaan leenahay indhuhu wayna furayiin si shalay maaha indhaha iga joogana waan ogaaday salaamu calaykum warahmatullahi wabarakatuh wa calaykum asalaam wa barakatuh wasaas weeyaan waxaan leenahay dhalinyarada iyo haweenka odayaasha iyo cuqaasha iyo cid walba aqoonyahanka indhaha fura indhihiina fura dareenkiinu ha shaqeeyo maaha inaad dareenkiinu mataqaanaa noqdo inaad dalag un beerataan oo mataqaanaa jaamacad qalin u haysataan qalinku waanu shaqeeyo maskaxda waa inay shaqeyso isbedelka waxa keena qayrkiina oo jaamacad ka baxay baa keena ama jaamacad ku jira dadka jaamacadaha ku jira isbedelka keena had iyo jeer markaas adduunyada waa aragteen madaxweynaha ka dhici jiray adduunyada wixii revolution soo maray waxa riday dhalinyaro ahaayeen jaamacada ku jirtay sidaas oo kale marka aan noqonina dad meel iska fadhiya oo meel kale lagu sii sugayo resource-kiina iyo wixii neesashada oo indhaha fura wax arka wax maqla hadla waa shacabka dhalinyarta Soomaaliyeed baan la hadlaya waxaan leeyahay Soomaali meel ku nool yahay waa isku dan weyn ka ku nool rees Kambooni iyo ku nool Saylac ku nool loo yaacada ku nool waa isku dan weey waa isku meel waa same boat busareen nin meel kala saaran ma jirto ninka meel kala saaran waa ninka maxaan ku raadaay Sheekh Maxamed Madoobe iyo maxaan ku raadaa Muuse Biixi iyo maxaan ku raadaa Deni iyo ragga ay caruurtooda weeyaan doon kale saareen kuwaasi doonta shacabku saareen ma saarna kuwaasi doon kale saaran yihiin marka waxa leeyahay shacabka doonta wada saaran oo wax arka waxna maqla oo hadla oo xaqina u hadla oo ka hadla dhibaatada eexda qabiilka iyo eexda ka hadla iyo dulmiga ka hadla oo idinka arkaya tikriya 30 sanadood bay ku amn ku taaglinayaan dalka Ethiopia
way rarteen dadka way rarteen sababta maanta loo dhirbaaxayo axmed abiyo u dhirbaaxayo waxay ka mid tahay way rarteen yani cadaawadii ay Ethiopia dhexdeeda ay ka sameeyeen baa maanta nin walba leeyahay mari gaarsii tigree maruna gaarsiiya aawa jaranadii shantii jaran ee kala fadhiyey maxaan ku dhahay Hargeysa iyo Garowe iyo maxaan ku dhahay iyo Muqdisho iyo Baydhabo iyo Kismaayo aawa halkay mareen way arday halkay mareen Soomaaliya nin kasta oo ummad dhiba ama gaal ha ahaato ama muslim ha ahaatee dhiba dad Soomaali ama dad dhiba cidda dadka ha ahaadana ama Ethiopia ha joogaan ama ha joogaan ma taqaanaa maxaan ku dhahay Soomaaliya ha joogaan nin kasta oo ummad dhiba godkaas ku dambeynaya taa ha ogaadaan dad badan bay u soo socotaa oo dib geystay oo dembi galay oo wax walba soo sameeyay ayaan baa iman doonta sida Tigreega maanta ay u haysato ay u qabsan doonto oo cidla loola bixi doono ayaan baa iman doonta way soo socotaa ayaantii marka waxaan leenahay shacabka Soomaaliyeed meel kasta joogtaanba ama Ethiopia ku noolaada ama Soomaaliya ku noolaada diyaar garooga indii noo furnaadaan tuugta iska qabta tuug baa rabta ummadda inay ku guurto tuug baa rabta ummadda inay ma taqaanaa ay hawiyada u qaado tirada ma taqaanaa resource-ka una iibiso cid kala siiso sala sheegay dawladda Soomaaliyeed waxaan leenahay waxaad ka hadashaan dhibaatada Kismaayo lagu hayo Jubbaland dhibaatooyinka lagu hayo ee Kenya ku hayso farganta ku hayso waa in la arko Djibouti dhibaatada ay ku hayso shacabka Soomaaliyeed Djibouti dhibaatada ay ku hayso heegada Djibouti shacabka reer Djibouti waa dad nadiif ah way diidan dulmiga aan ogolayn maxaan ku radaa in dadka la dulmiyo ma ogola cid ogolay ma jirto laakiin qasriga madaxtooyada Djibouti waxa laga wadaa waxa weeyaan waa shirqool waa dil waa dhac iyo maxaan ku radaa waxa alkasan maanta resource-ka ummadda in laga faa'iideysto cid loo xidho ninbaa soo xidhi waxaan arkay intaasoo kun oo container oo badda dhex yaala xeebta awdal intaasoo container oo yaala soo caariyay xagee ka yimaadeen waa qashinkii lagu tuurayay wey la socda hadda yaa ogaada shacabka reer awdal waxaan leeyahay aqoontiina xagee jirtaa garaadkiina halkuu maray aragtiina halkay martay cid baad u shaqaynaysaan kale siyaasigiini baa cid u shaqaynaya aqoonyahaankii baa cid wax u qoraya waa rarantihiinuun madameerjin baana haddaba duudku nacasaaye buu yidhi madameerjin raray baanu nahay duudku nacasaaye war duudkii u nacasaanin ree awdalow aqoonyahanka ree awdalow siyaasiga ree awdalow ummaddaad wax ku tahay dadkaagaad wax ku tahay cid kale wax ku noqon maysid ayaamaad wax ku ahaani ayaamo days baad wax ku noqoni ood mataqaanaa aad ku cashayni haddaad cid kale u rarnaato laakiin waxaan kaa hadhaynin oo taariikhda ku gelaya ummaddaadaad wax ku tahay dadkaagaad wax ku tahay saad wax ugu qabato dadkaagaad wax ku tahay waxaad u tarto darkaagaad wax ku tahay waxaad uga tagto lagu xasuusan karo professor Ali Khaliif Galayl waad arkaysaa maanta dadkiisu wax uga tegay dadkiisu uga tegay kiyoole waxaan raadinayaa qadiyada ummadda reer Khaatuba raadinaya kiyoole ka dhintay taariikh buu ka tegay aqoonyahanka reer muxuu ka tegay waa kane wuxuu ka tegay sheega Muuse loo joogaa buu ka tegay waxaan leenahay nin wal oo cid kale u raranba saasa u dambeyn doonta هلو السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كوسو دو مقع عيالك تشوفتو المحل كي قيب قرصة برامجك. السلام سلام يا دمان أديك إياها الوضنة قلبي تي في مقع عيدو وحنا رحمة فارح كامل وحنا ندقنا هاي مقالة أطوى دلك كندا. كوسو عولا المحل كي قيب سمكاس. وحتجل يا وحا هرطا آد يسو تشيسي حقيقة كتبته أما محاكو جهلا على كوريا محاكو كوريا أشجع في على أوبريشن كسمية. أوبريشن كواحد سمية تايوانيز كسمية يو دخاتين. ما تايوان بي هاي قرادي سمية أوبريشن. أوبريشن كتايوان بس سمية ولا كقوليس. ولا أكثر عتيبة أو إكسبرت وأهاني كاسي. اسميه تايوان إيه وحوصات ساري وحيابيه إحوجنيه. meesha dab joogay uu soo saaray wax alla waxa uu ka soo qodayna waa wax runa waa waxay hore ugu soconaadahay waa waxay maxaan ku ilaalaa meel u gaari waayeen waayo meel wadan looga talinayo ogaan wadan cuqdad iyo maxaan ku ilaalaa cuqba haysato
meel ma tagaayo waa adiga arkaya maanta waxa tigreey ku dhacay waxa ku dhacay maxaa ku dhacday axmaara ku dhacay waa adiga arkaya nin walba waxa weeyaan waxay sugaysaa cuqubadu galay waxay sugaysaa hoostiisa taala awal waxa loo oran jiray nafsiga waxa qaada diin baa loo oran jiray maanta toddobaylaha qoda adiga arkaya ninkii dhibay wixii ku dhacay duhur cad dadka jeelka la geeyay halka ku jira tigreey waa adiga arkaya maxaana waad arkaysaa marka waxaan leenahay wax badan baa in lagu tidaaro qaata u baahan dadka u heshiiyey baa la yidhi dadka loo heshiiya daraa loo ciloogaan marka waxa weeyaan dadkan masaakiinta ah ee containerka lagu xidhay ee uu cirkuuna muuqdo dadka u heshiiyey sidaasoo kalaa ku dhacaysa waa sidaa jeebto waxaa iman doonta maalin maxay iyo awdal buu yidhi maxay hebelow hadrateen ad ku doontaan tirig miyaha gaariye ayaabaa iman doonta dadka sooliya awdal raadicdooda odkaato oo lagu raadsa ilays waxaa iman doonta maalin sidaasoo kale nin kasta oo dembi galay sidii ninkii dhilay inta la qabto 2 bilood dhexdeeda uu halka kasoo daawan doono dadka kasoo daawan doono marka waxaan leeyahay ma dheera laakiin ha laga faa'iidaystaan sida laga faa'iidaystaan leeyahay waxa kale oo jirta dadka masaakiinta ee dhulkoodii maxaa ku dhacdaa laga samaynayo warshadaha laga samaynayo Chinese la siinayo waxa weeyaan calanka Djibouti laftiisa Chinese baa qali doonaan u malaynaya sidaa Taiwan u qashayta Soomaaliya waa soo socotaa waa soo dhowday isagana waa la qalaya way soo dhowdahay waxba Chinese baa halkan maraya Chinese baa halkan maxaynaya yaa la oran Chinese baa qali doonaan u malaynaya calanka Djibouti oo ka soo saari doona dhibaatada dhex taala ee umada reer Djibouti la dhex dhigay umada reer Djibouti waxay ahayd dad nadiif oo wanaagsan bay haayeen oo ciqdad iyo calool xumadina ku jirin laakiin dadkii xanuun baa la kala wada dhex dhigay laakiin nin walba soo socotay nin walba aqalkiisa biyo socda aqalkiisa ku qaad sida way marka waxa weeyaan waxaan leeyahay intii hore way la isdaawanayay laakiin maanta waxa weeyaan nabarku dadka wuu wada gaaray marka waxaan leeyahay reer Djibouti waxa idin gaaray iska qabta dhul aanay lahayn inta lagu soo milileeyay la yidhi halkan aad leedihiin halkan sayla iyo waxaad leedihiin iyo maxaa ku dhacdaa anagu maadaan arag meel ay dad kale leeyihiin sayla iyo lughaya ilaa iyo taariikh dadka gadabuursiga lahaa dib hadda taariikhda ugu noqoto markii la yidhi 91 waxbaa la soo qabsaday ninkii cigaal ahaa wuxuu ahaa nin taariikhyahan u ahaa aad buuna maxaan ku idhaahdaa u shiidi jiray maxaan ku dhahdaa dhaqayaha siyaasadda geeska afrika u shiidi jiray ugu rogrogi jiray wuxuu arkay markuu arkay ninka maxaan ku dhahay inay geelo oo leh waxaan u baahanahay oo shuruudda yada isaaq ay ahayd inaanu saylac nala siiyo oo Djibouti lagu daro waayo wuxuu yidhi buri Ahmed markaa sheeganayna idin gumaatay gada buursi waxa heshiis baanu dhiganay ilaa nisaaq iyo ciise aan buri Ahmed ku qaadanay nisan baanu qaadanay buri buri Ahmed ma naan qaadanay yalla ma naan qaadan nisan kaanu qaadanay waxay ahayd buu yidhi inaanu dhulka helno gada buursi maanta itaal daran yihiin awal siyaasiye waxa naga horjoogay siyaad bare maanta saddex dawladimo jirta ee cigaalo wuxuu yidhi dhulka wayna ku darasay wayna ku darasay Djibouti ku daro cigaal wuxuu yidhi Allah yarxamahu wuxuu yidhi dhulkan dad baale anu madaxweynaha ka ahay laakiin dad baale dadna dhulkooda anu dad kala masin karo Djibouti inta ilaahay madaxda ka tahay waa inta salamtiyarka malowya cabdo ee qaybinay Soomaali tahay qaybinay Djibouti tahay halka uma soo dhaafay sidii ku leeyahay geeli waxaan dariiqa maray 1990 waxaan maray 2001 kiiba dariiqa maray iyagoo uu xiran yahay maxaan ku idhahdaa salamtiyar xiran yahay anigoo sheekada lagu jiro la leeyahay maxaan ku idhahdaa waxa loo xiray labadii madaxweyne ay afnaafay markii aan daba galnay maxay isku afnaafay ilaa waaba ninkan damac buu ku jiray maadaama oo Somaliland ay isleeyahay waxaan la soo noqonaynaa maxaan ku idhahdaa Somaliland ma yada qolada iyagu boqortay waxaan Somaliland leeyahay ma jirto juqraafi kuma Somaliland lagu yahay laakiin qolada maxaan ku idhahdaa qabiilland sheegaland maxaan ku idhahdaa waxay yidhaahdeen ilaa waxay kula galeen ninkani nasiib maxaan ku dhahdaa ciidan iyo hub nasiib si aan gadabursiga iskaga celino gadabursiga waxa suuqno hadda dhulkaan ku siinaynaa bini Ahmedna sidaasaynu walaalkeen iska soo galnayo dee isku soo booda waxaan samaysanaynaa
magac baynu samaysanaynaa siday markaba sheegaanta u samaysteen waa u dhib yartaa inay waxay doonaan sheegaan marka waxay sheegteen oo yidhaahdeen reer buni axmed baa layna yidhaahdaa buni axmed haddaan nahayna waa inaad gadaguursiga aan iska dhex qaadna baa layidhi si aan labadeena buni axmed ugu furan dhagax walba halkii alla dhigay buu yaallaayo ninna lama nin ilaahay dhaqaajiyunbaa dhaqaaqa nin walba halku dhagaxana halkuu ilaahay dhigay buu yaallaa gadaguursi halkii ilaahay dhigay buu yaallaa marka waxaad leedahay socon mayso laba xaaraan ku heshiy darale u culoobaan isha maada isha adika dacawadi libaax uu yidhi xoolaha qaybi tigre iyo ilahay digu filaadaan baad leedahay maxaan ku dhaca markay qaybisay buu wuxuu yidhi waraabihii dayo sideed leedahay hoosta wixii waxay tiri dayo markuu waraabihiisa soo taagay inoo kala reeb xoolaha mabkaga siiyey libaaxiyo isha soo booday iyo haddana yidhi naasidaad wax leedahay waxay tiri maxaan ku dhahdaa isha xali ka boodee baashiisa lulasiya waayahan ka bowsaday sidan xaalad buu dhacay ka waxaan leeyahay wax badan baa soo socda laakiin dadka la raba inay ka faa'iidaystaan hurdada ka toosaan waxa weeye waa gabadguursi golden chances baa u yaalla inay ka faa'iidaystaan loo baahan yahay dhulkoogaasi maalinka maanta iminka waxay maqlayaan la iisoo sheegay $2 milyan inay maxaan ku dhahdaa jeegaland soo ururisay oo wadadii caddayd ay marinaysa leedahay ilaa jabuuti hala gurida waxa weeyaan ama jabuuti ku rida ama jabuuti ha ku ridin oo waxa weeyaan badda ceel sheekh ilaa iyo maxaan ku dhahdaa looya cadde laga soo gaarayo dhulba dad baa iska deganaa dad baa iskale dhalashana ule dhaqmaadna ule marka ilaahayna mutirtiru baa tirtirmaya laakiin waxay rabaan inay dhulka qaataan laakiin waxaan u sheegaynaa dowladda farmaajo sidaa la sheegay intii igu horreysay walaashay sheegtay in maxaan ku dhahdaa raas kamboli ilaa raas maxaan ku dhahdaa raas casayr ilaa raas kamboli uu farmaajo ka tahay dowladda soomaaliyeed federaalka ka tahay ilaa loo yacdo ilaa raas kamboli ilaa loo yacdo inay ka taliso dowladda soomaalida ayaan u sheegaynaa marka waxaanu leenahay war indhaha fir farmaajow indhaha fir waananu ognahay in badan baanu ognahay in maxaan ku idhahdaa ninka ina geelay oo cishadii dhaweyduu khayre kugula dagaalamayay uu khayre maxaan ku idhahdaa kugula gorgortamayay galaayo inaad ku dhigtay waanu ognahay inaad iska celisayna waan ognahay inuu dhulka maxaan ku idhahdaa iifax ku yidhina waan ognahay aad iska diidayna waan ognahay marka waxaan leenahay farmaajo ummadani adigaa ka mas-uula maalinta qiyaamahana adaa lagu weydiin sidaa la sheegay kismaayo iyo intaad ka hadlaysa kenya jabuuti iyo maxaan ku dhahda soomaaliyana haddana aday ku taallaa waa hawshaadaan leenahay farmaajo sidaas wey dadku waa inay ogaadaan ismaaciil inaan ahayn oday soomaaliyeed baa lagu waday laakiin wuu noqon waayey wuxuu noqday oday jirib buu noqday heeguu noqday suldaan caaqil buu noqday waa ta sheegtay bukaaci caaqil ismaaciil bay tiraahdaa caaqil ismaaciil jilib yar buu kusoo ururay marka waxaan leenahay caaqil ismaaciil oo gurigaaga iyo joog baan leenahay ummadda reer jabuutina dhibta ka daa iyo shacabka soomaaliyeed ha ku qaado nacam sidaasaan leenahay maxaa kusoo gabagabaynaysaa markaas ummadda soomaaliyeed u sheegaysa waxaan kusoo gabagabaynayaa shacibka walaalaha ee maxaan ku idhahdaa dhulka wada degan inay si wanaagsan u wada deganaadaan inaan laga dhex shaqaysanin in maxaan ku idhahdaa dadkii meeshan lahaa ee wada deganaa ay si nabada u wada deganaadaan haddiise laga dhex shaqaysto ninkii dhulka lahaa inuu u halayo un ha ogaadaan inankay inani keentay laguma xisaabtamayo ninkii dhulka lahaa unbaa xisaabta iskale kaan baana dhul kale kaan baana lahaan doona ilaa qiyaamaha ree axmed gureyna waxaan leeyahay axmed gurey iyo amiir nuur taariikhdoodii dee meel walba way taallaa saxaafad maxaan ku dhahdaa masaxafiyadoodii iyo taariikhdoodii way taallaa waxaana leeyahay arliyo masal guurto badda sacaba laguma dhuro sidaas weeyaan ogada guurti marna ma soconayaan halkii alla dhigayna joogayaan hadday dhaqaaqaana cid joojin karta ma jirto arliyaa la yidhahdaa marka waxaan leeyahay dadka gadaguursina toosa indhaha fura kakoshi hadday noqoto iyo ceelka boorka laga samaysanayo fishinka laga samaysanayo sayda waa cunaqabatayn horaa laydinku sameeyey maantana cunaqabatayntii kii unbaa sii xoogaysanaysa wixii dhulka lagu qaadanayay weeyi indhaha hala furaan leeyahay dhulkiinana dhexda u xidha indhahana fura dhalinyartana waxaan leeyahay sidaa la sheegay waxa weeye maanta waxaa la joogaa
qarnigii 11aad baa la joogaa dhalinyarta ayaa wax bedesha dhalinyarta ayaa revolutionka keenta odayaasha iyo maxaan ku dhahay xiliyadoodii way socdeen way tegeen dhalinyarta waxaan ku leenahay inay isku tashadaan dhalinyarta dhulkooda naxariistaan ilaashadaan dhulkooda day bad tahay iyo hadday berri tahay iyo hadday buur tahay macdanaha la rabo in laga gurto iyo fishinka laga rabo in laga gurto iyo qashinada lagu soo daadinayana inay ka digtoonaadaan qaninkooga iyo caqligooga iyo xoogooga iyo muruqooga iyo maalkoogaba ku dagaalamaan oo dhulkooga ilaashadaan baa kusoo gabagabaynayaa dada buurti wuu jiray wuuna jiri doonaa ilaahay idankiisa dhulkana nin walba halkii dhagax walba halkii ilaahay dhigo ugu yaalaa ma dhaqaaqayo aad baad umahadsan tahay raxma faarax intaasaan kusoo gabagabaynayaa wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu wacalaykum wasalaam waraxmatullahi wabarakaatu raxma faarax kaamil oo khadka telefoonka ee magaalada Ottawa naga soo xidhay ahayd waxaan leenahay haye cabdilqaadir haleer qaba awrka haye cabdilqaadir haleer qaba awrka imisa la yidhi imisa hadda imisa waa la ahaasi waa khiyaaliya ka mid tahay haye cabdilqaadir haleer qaba awrka dheerta marka waxaan leenahay haye cabdilqaadir shaqayn mayse ummadda waxa weeye dadku waa walaalo yaan dadka la isku dirin dadka yaan la isku dirin dadka yaan la isku diri maalena dadka yaan la isku diri maalena dadka yaan la isku dirin gaboobiyo والله يا صدحه والله يا صدحه والله يا والله. الو السلام عليكم. qofkaasi waa usoo geli leeyahay صدحه والله يا كي وحيهايو ودانكيغو مقيهاي وحكاستودي سيسا كي وحيهايو ودانكيغو مقيهاي وحكاستودي سيسا أما قبر وداد دالي وعاني رستان نفتا وهلو يشا أما قبر وداد دالي وعاني رستان نفتا وهلو يشا وهبك وانا جاي راحة وحكو تجيا معاهي وهبك يسارني وانا جاي راحة وحكو تجيا معاهي ولا شوق ما يسيبو يلكوني وريبو ودناها يقتبيا ولا شوق ما يسيبو هلي بودي وريبو ودناها يقتبيا واي قبوبيو واي قبوبيو انتو واحد نور ياي وضلي بناني لقوي عن ماي سومالي ويني وعد باينو يال وضلي بناني لقوي عن ماي سومالي ويني وعد باينو يال الله نحيسته وهليجي صوماليات عبدي كامل عوالي oo wada garanaysaan allah u naxariisto ilaahay jannada firdawsa ka waraabiyo waxaan leenahay shacabka Soomaaliyeed meesha ku nooshihiinba barwaaqo iyo khayr baan idin rajaynaynaa waxa aan soo gabagabaynaynaa oo soo afmeeraynaa qormadeennii maanta aan kaga hadlaynay cunsuriyadda waqooyiga ka jirta qabiilka ka jira waqooyiga
dhakhaatiirtii adduunyada oo shaybaar ku samaysay ama operation ku samaysay waqooyiga soomaaliya ogaatayna waxaasay kasoo baxeen dac waxaasi wax jira ma mise waa wax cusub waxaasi ma wax cusub ma wax ku cusub baa geyga soomaalida kuma cusba waqooyi may ku cusub yihiin kuma cusba haddaba waxaan leenahay dadka waxaa dugsanayow hurdada ka kaca hurdada ka toosa oo adiga arkaya resourcekiini baa la xadaya resourcekiini baa Chinese loo soo kiraysanaya siimoodi baa Chinese loo soo kiraystay waad ogeydeen imise company oo qarsoon baa ka shaqeeya gobolada ma ogidin toosa wax arka indii noo shaqeeya ma leenahay laakiin ayaamo yaan khiyaamooyin mataqaana maalin been yaro agaasimaa inta la soo magacaabo rooga safka hagelina oo kooraha ka istaagina mataqaana dhex soconina waxaan leenahay indii noo furnaadaan wax arka Somaliland wax jira maaha Somaliland doesn't exist wax jira maaha Somaliland heega jirta heegolaan wax la jira heegalaana wadi ka arkaya qashin ka soo baxaya heegalaan waxa ka soo baxaya wadi ka arkaya this is a reality check maaha wax been laga sheegay maaha Somaliland taad maqasheen ama heegalaan taad maqasheen waxa ka soo baxaya waad arkaysaan this is waxa ka soo baxaya Somaliland taad sheeganaysan waa taaway toddobaadkan dambe waxaan ka hadli doonaa Somaliland tii 60kii la yaqaanay ee waqooyiga ee xornimada qaadatay 1960 June xornimada qaadatay iyo tan maanta aynu arkayno ee noocaniya yaan isku kabeelgayn doonaa haddii ilaahay yiraahdo toddobaadka soo socda ayaynu la foguri doonaa Somaliland soo aynu naqaanay ee 1960kii xornimada qaadatay 60 June iyo tan maanta aynu arkayno ee qashinkaasi iyo qurunkaasi eexdaasi iyo qabiilkaasi dadka hoos fadhiya aynu eegi doonaa waxaan leenahay haddii Allah wadali hogolaado maanta waxaan kusoo gabagabeynaa oo kusoo ahmeeynaa programkeennii intaan ku kulmi doono barnaamijkan oo kale ah waxaan idin leenahay meel kastoo joogtaanba sidaas iyo nabadgelyo waxaan idinkaga tegayaa waxa weeyaan arrintaasi maxaan ku rahdaa ka socota dhulkaasi Tigray waxaan leenahay Tigray waxay galeen dembi ummadda Soomaaliyeed ummadda Ethiopia ka galeen علينا أورما تتخنيسي بيا فيما تكديسي بلانهاي أورما تتخنيسي بيا فيما تكديسي أورما عدو ما أنت وضع نبا أورما ما أنت عدو ما أنت ميجبتها إذا وقت إذا سيشن ذا ما ترى هذا محمد الله أورما تتخنيسي بيا فيما تكديسي مركا علينا أورما يكع ما أنت ما أنت هذه وما ضحوري عد ما أنت أورما حوري استريك تمشيتو مركا علينا أورما وأنا برتاجنا هاي ديار ما هاي إن كقرب قادنا maxaan kale waxay nooga baahanyiinba waa la caawinayaa waa la taageerayaa waa la tirtirayaa boqortooyooyin hore oo jiray iyo mid maanta boqortooyo rabeen samaystaba no more ummadda waa midway andinacho waan ka dhiganaa ummaddu waxa laga dhigayaa andinacho dad is ogol wax wada leh walaala ah geeska Afrika ku nool oo wax wada leh ayaan rabeen la abuuro laakiin lama rabeen la abuuro cuqdad iyo eex iyo qabiil in la abuuro oo laga abuuro geeska lama ogola no more Ahmed Abiy wasaaradda Ethiopia waxa leenahay hawsha wado dadaalka wado bilad bad ku qaadatay maxaan ku raash bilad sharaf bad ku qaadatay Nobel Peace Prize bad ku qaadatay horumarka sameysay waxa adduunka waxaad gees ku soo kordhisay tanna waxay la mid tahay tiiba la mid tahay inaad tirtirto cadaawadda inaad tirtirto cid kasta oo ka hor imanaysa walaaltinimada wada noolaashaha iyo mataqaanaa maxaan ku raahay dhibaatooyinka ka abuuray geeska waa bilad bad ku qaadan doontaa insha Ilaahay idinkiisa waraan ku barbartaaganahay hawshaasi waa hawl loo baahan yahay in laga wada shaqeeyo oo geeska laga dhigo dad wada leh waxoodan oo waxoodan marka waxa leenahay Tigray waxa leenahay amba dhama qaraarkee waana dhamisaa way ninkii loo jiray Gebre adiga xukuma Gebre wasiirka gaasha andhigiyo wasiirka arrimaha Gebre u tago adiga way Gebre where is he now Gebre adiga xukuma imisa leeyahay Gebre adiga xukuma maanta wadiga Gebre arkay Gebre is where he is now Gebre maanta ku joogo wayno dhaxaysayo adigu badarara ka qoslaysay dooshe annabi sidaan galay qiimaha ku dhuntee annabi sidaan galay qiimaha ku dhuntee
wadadii bannaanay laga weecan maaye soomaali weyne saddexba wallaahiya wallaahiya saddexbu wallaahiya saddexba wallaahiya wallaahiya saddexbu wallaahiya intay wax yahay iyo waddankaygu maqan yahay wax kastoodi siisaa intay wax yahay iyo waddankaygu maqan yahay wax kastoodi siisaa ama gabar wadaad dhalay wacaani aroostaa nafta wehelu yeeshaa ama gabar wadaad dhalay wacaani aroostaa nafta wehelu yeeshaa wahabkaay saaran wanagayo raaxada wax ku tegaya maahe wahabkaay saaran wanagayo raaxada wax ku tegaya maahe wiilashuu gumaysigu hilibkoodii wadhaygu wadnahaygu tegaya wiilashuu gumaysigu hilib intaan ku kulmi doono barnaamijkan oo kale ah waxaan idinkaga tegayaa sidaas iyo nabadgelyo anigoo cumar ismaaciil maxamed halkani waa galbeed t v xaruntiisii magaalada edmonton ee dalka canada daawadayaal meel kasta joogtaan baa waxaan leenahay assalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu gaboobiyo intuu waaxid nool yahay waddadii bannaanay saddexba wallaahiya wallaahiya saddexbu wallaahiya saddexba wallaahiya wallaahiya saddexbu wallaahiya intay wax yahay iyo waddankaygu maqan yahay wax kastoodi siisaa intay wax yahay iyo waddankaygu maqan yahay wax kastoodi siisaa ama gabar wadaad dhalay wacaani aroostaa nafta wehelu yeeshaa ama gabar wadaad dhalay wacaani aroostaa nafta wehelu yeeshaa wahabkaay saaran wanagayo raaxada wax ku tegaya maahe wahabkaay saaran wanagayo raaxada wax ku tegaya maahe wiilashuu gumaysigu hilibkoodii wadhaygu wadnahaygu tegaya wiilashuu gumaysigu hilibkoodii wadhaygu wadnahaygu tegaya waaye gaboobiyo waaye gaboobiyo intuu waaxid nool yahay waddadii
banaanay laga weecan maaye waddadii bannaanay laga weecan maaye soomaali weyne